Amiir Turki Al Faisal oo ah madaxii hore ee sirdoonka dalka Sacuudiga ayaa waxa uu kashifay sababta ku kaliftay Mareykanka inay badda ku tuureen meydka hogaamiyihii hore ee Al-Qaacida Osama bin Laden. Amiir Turki oo ka qayb galay barnaamij dood ah ayaa waxa wax laga weydiiyay sababtii meydka bin Laden loogu tuuray badda beddelkii dhulka lagu aasi lahaa. Marka waxa uu ku jawaabay amiirku sida ay Mareykanku noo sheegeen ma aanay doonin inuu yeesho muuqaal astaan ah oo dadku siyaartaan ama shay dadka soo aadi karaan. Haddii dhul gooni ah lagu aasi lahaa waxa dhici kartay inuu noqdo mid ay dadku soo booqdaan oo ay siyaartaan. Dhanka dilkii Osama bin Laden beddelkii isagoo nool la qaban lahaa waxa uu yiri arinta waxba kama oran karo laakiin sida ay sheegeen markii ay qolka ugu galeen wuu hubaysnaa sidaas ayaana lagu dilay. Amiir Turki waxa uu tilmaamay in Mullah Umar hogaamiyihii ugu sarreeyay ee Taliban 1998 ay dhowr jeer ka cusdeen in Osama uu iska soo dhiibo oo uu Sacuudiga u gacan geliyo xilligii boqorkii geeriyooday ee boqor Abdullah bin Abdul Aziz, laakiin Mullah Umar waa uu diiday inuu dhiibo bin Laden. Osama bin Laden ayaa la dilay sida la aaminsan yahay 2011 isagoo ku sugan daafaha magaalada Abbottabad ee dalka Pakistan. howlgal ay fuliyeen ciidamada sida gaarka oo tababaran ee dalka Mareykanka. Markii la baaray DNA oo cidda uu yahay la hubiyay ayaa meedkiisa lagu tuuray badda. Duruuf sir badan ay ku hareereysnayd oo aan la fahmi karin. Waa sida ay sheegayaan Mareykanku.